جنرال سعيد وتعالى إنه يستبدل وكان صديق شيغانا وين ربا madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taala say u shaqeysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkeega maamulkeega waxaan soo qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagayiin waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan
maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid awey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaaducu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan intaas ma yeelaysaan jenaraal saacid ee u taala inuu isbedel u keeno saldhigga madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisi iyo beerihiisi iyo sharaftiisi iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aad sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo
dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalo ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaan waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adagay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagood kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushaahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaraalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawe booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaan u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maantaa shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد ابو تالا انه يسجل وكان
madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin. markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay. waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan. tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda. maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn. ilaahayna waa u carooday. waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno. waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay. marka cadaaladda haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo. waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay. magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan yay ahayd. haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay. waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin. maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo. ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed. ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan. waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada. saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba. way hor taagayiin waana ku dhimanayaan. 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin. yaa laga abaaldhicin. ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay. waa qaadicu dariiq. ogaada wiilashayda ma aha. ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan. ninkii soo qaban lahaana waa kana aawo booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey. haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin? annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna. ma maqlaysaan? ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaan u taagan.
yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaaducu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma ah waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege may maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagal inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد وتعالى إنه يستبدل وكان صديق شيغانا وين ربا madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa say u shaqaysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan soo qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah
waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeelay dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagayiin waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow Soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dawladdaani dawlad xoog ku timid ma aha waa dawlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد وتعالى إنه يسجل وكلمة صديقة شيء وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa say u shaqaysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan soo qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa uu ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa uu ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aad sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adagay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagan qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaa laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawe booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye
dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege may maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anigu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد وتعالى إنه يسبدل وكان مصدق شيء وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isku qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan
waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha generaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawo booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan jenaraal saacid ee u taala inuu isbedel u keeno saldhigga sheegana waan rabaa madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay
saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noolaa meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayno ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxaa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalo ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adagay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushaahar qaadanayn yay hor taagan qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku raha janaraalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawe booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha
maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد وتعالى إنه يسجل وكلمة صديقة شيء وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa see u shaqaysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkayga waxaan soo qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasanad Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aad sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeyna maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagan qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan
yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid awey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idiin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan intaas ma yeelaysaan jenaraal saacid ee u taala inuu isbedel u keeno saldhigga madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisi iyo beerihiisi iyo sharaftiisi iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa see u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa uu ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa uu ah cadaaladii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aad sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin
dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado, in lais ogolaado dad Soomaali oo walaal ah yaan nahay. waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin. maxaa yeelay dadku haddaysan isku calool fiicnayn, haddaysan dadku walaaloobin, ammaan lagama hadli karo. ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaad tihiin, dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba, ilaa waa magaalo Soomaaliyeed. ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan, waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan, waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn, kii dhaawacmana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada. saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba. way hor taagayiin waana ku dhimanayaan. 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin. yaan laga abaaldhicin. ma maqlaysaan? wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay. waa qaadicu dariiq. ogaada wiilashayda ma aha. ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan. ninkii soo qaban lahaana waa kana aawey booliiska jenaraal saacid aawey ee sambalowshe waa raggaan wey. haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin? annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna. ma maqlaysaan? ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan. yarow yaa u taagan. ma garat? tiiraana sugaaya. maxaa yeelay qaadicu dariiq diinteennaa diidday, annaguna ma ogolin. ma maqlaysaan? jidka ka baxaya halkan oo ilaa Baydhabo tegaya baryahan dhammaan ka shaqaynaynay. nin ciidan darees qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna. insha allah mushaharadooda annagaa meel saarayna. qofkii dadka dhiba marka waa cadow Soomaaliyeed, waa cadow islaan weeye. dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha. waa dowlad shacab, rabitaan shacab ku timid weeye. awooddan idinkaa iska leh, annagu ma lihin. annagu waxaan idin nahay adeege. ma maqlaysaan? waan idin adeegnaa oo keliya. waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo. waa dimuqraadiyad. hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi, hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah. waxaan idiin sheegayaa anigu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha. maanta shaqadeedu tahay maanta. ma maqlaysaan? uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya. maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan. intaas ma yeelaysaan? intaas ma yeelaysaan? تعال حقنا عذر بدي جنرال سعيد وتعالى إنه يسبدل وكلمة صديقة شيء أنا وين ربع
madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku raha janaraalkaygaa u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawey booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya
ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaaducu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin mi maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege may maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagal inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagay 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan جنرال سعيد وتعالى إنه يسجل وكلمة صديقة شيء وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayno ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka
dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshisiin maxaa yeelay dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taageen qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taageen waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaal dhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay gudoomiyahayga maxkamadda aaway liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid aaway ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow Soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anigu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan تعال حقنا عذر بدي جنرال سعيد وتعالى إنه يسجل وكلمة صديقة شيء أنا وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshan ay taallaa see u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay
annaga dadkayga maamulkayga waxaan isu qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin. markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay. waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan. tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda. maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn. ilaahayna waa u carooday. waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno. waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladii aan ka tagnay. marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo. waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay. magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan yay ahayd. haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalaah yaan nahay. waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin. maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo. ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed. ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan. waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada. saasay tahayna iyagood kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba. way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan. 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin. yaan laga abaaldhicin. may maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay. waa qaadicu dariiq. ogaada wiilashayda ma aha. ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan. ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey. haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin? annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna. ma maqlaysaan? ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan. yarow yaa u taagan. ma garat tiiraana sugaaya. maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin. ma maqlaysaan?
jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege may maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagal inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta may maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan تعالوا تعالوا حقنا عود البداية جنرال سعيد وتعالى إنه يستبدل وكان مصدق شيغان وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaaggiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiina meeshanay taallaa see u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dowladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dowladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinkugu mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasanad allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhegaystay 3 arrimood yaa ii soo baxday waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreyn in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuguma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan yay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalaah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin
ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda dalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taageen qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan 100 jeer waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo difaaceen waa ogtihiin yaa laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay gudoomiyahayga maxkamadda aaway liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid aaway ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeelay qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan darays qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow Soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dawladdaani dawlad xoog ku timid ma aha waa dawlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awoodan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anigu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagay 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan تعال حقنا عود البداية جنرال سعيد وتعالى إنه يستبدل وكان صديقك شيغانا وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye waddankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa say u shaqaysana waa la la'yahay imaashaad aad aan u faraxsannahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan isugu qabna hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa
ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexan ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin. markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay. waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan. tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda. maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn. ilaahayna waa u carooday. waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadleenno. waxaan ka hadleenno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay. marka cadaaladda haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo. waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay. magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan yay ahayd. haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalo ah yaan nahay. waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin. maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo. ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed. ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan. waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan. waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada. saasay tahayna iyagood kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagan yihin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba. way hor taagan yihin waana ku dhimanayaan. 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin. yaan laga abaaldhicin. may maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay. waa qaadicu dariiq. ogaada wiilashayda ma aha. ninkaanan u taagan maxaan ku raha janaraalkayga u taagan. ninkii soo qaban lahaana waa kana aawe booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey. haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin? annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna. ma maqlaysaan? ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaan u taagan. yarow yaa u taagan. ma garat tiiraana sugaaya. maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin. ma maqlaysaan? jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay. nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna.
إن شاء الله مشاهدة أننا ميل سارنا قفكي دتك دبا مرك وعدو صوماليد وعدو إسلام ويه دولة داني دولة حقوق كتمد معه ودولة شعب رابطان شعب كتمد ويه أودن إليك أسكاله أنا ملهين أنا وحنين هاي أديجي من مغرسان وأن إذن أديجنا وكلية وحن إذن أديجنانا وعفر صاروا ومامور والبلوة تلقى إنه جوجو وديمقراطيات هادو شغل في عن قبطنا وجوجي هادو شغل حون قبطنا إليك بحناية إن شاء الله waxaan idin sheegayaa anuu 4 sano ku xigta shaqadeeda maaha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqal taagay 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan تعالوا حقنا عود البيت جنرال سعيد وتعالى إنه يستبدل وكلمة صديقة شيغانا وين ربع madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taala say u shaqeysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkayga waxaan isku qabno hoos aan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aas sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaalo ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaan waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida
ogaada duruufo adagay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagood kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan yay oo mushaahar qaadanayn yay hor taagayiin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray ooy difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha generaalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawo booliiska generaal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaan u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan dareys qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idiin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay igala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan